kulanka baarlamaanka ee maanta waxaa soo xaadiray 198 xildhibaan iyadoo uu shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo isoo khudbadiisa furitaanka kulanka uga hadlay arrimo ay go'aan ka gaareen xildhibaanada golaha shacabka kuwaas oo ay ka mid ahaayeen boosaska xildhibaanada geeriyooda iyo intaas ay leeyihiin odayaasha dhaqanka markii hore soo xulay xildhibaanada cid bedelaysa iyadoo taasina laga fiirinayo galalka feelashooda doonka culays aad ayaa ka haysata buuxinta kuraasta banaanaata ee xildhibaanada golaha ka banaanada isqabqabsi iyo mashaakil badan oo iyo culays badan ayaa ku yimaada iyo sulux badan baan ka galaa inta ka horna waa idin soo jeediyay waadna ansixiseen laakiin maanta waxaan rabaa in si qaanuuni ah sharci ah ay ansax noogu noqoto 135 odayaal baa annaga dhan soo magacaabay waxay aadaanba ayaga ay ahaayeen kuwii qaanuuniga ahaa waxaan aad u jeclahay maanta inaad ansixisaan in guddoonka uusan laablaab iyo waxba wareer gelin qof alla qofkii uu soo qoro odayaashii 135 ka mid ahaa qofkuu soo qoro in hore laga dhaariyo mahadsanidin aada u mahadsantiin culays baa iga dejiseen xildhibaanada baarlamaanka ayaa sidoo kale kulankooda waxa ay ku ansaxsadeen 2 shaqo oo cusub kuwaasi oo kala noqonaya in bishii mar ay xildhibaanadu yeeshaan kulan ay albaabadu xiran yihiin oo saxaafadu ay dibajoog ka tahay kaasi oo ay uga hadlayaan dhaliilaha jira iyo sida loo sixi karo ayadoo shaqada labaad ee goluhu ansaxsadeenna ay tahay in bishii mar ay kulan la qaataan shacabka kaasi oo lagu magacdaray dhageysiga guuxa dadweynaha intaasi kadib xildhibaanada baarlamaanka ayaa gudagalay aqrinta labaad ee injiil sharciyeedka dhismaha bangiga horumarinta Soomaaliya iyadoo xildhibaanadana uu uga horeen ka hor hadlay gudoomiyaha bangigan mudane Professor Cabdullaahi Axmed Afrax oo mudanaasha baarlamaanka u faahfaahiyay bangigan iyo qorshayaashiisa kadibna waxa ay xildhibaanada baarlamaanku weydiiyeen su'aalo ku saabsan dhismaha bangiga horumarinta Soomaaliya adduunka waxaa hadda la qaadanayaa nidaamka islaamka oo ribada ayaa laga ordayaa dawladda Ingiriiska ayaa hadda shaqo ugu dambeeyay dunida muslimka waxay la qaadanaysay in laga daayo maartay ribada taa marka iyadana bangigeena maxaa uu islaamka xaqiisa nooga sheegi kartaan in ribada uu ogol yahay ujeedada marka dhismahan bangigan horumarinta iyo dibadhiska waxay salka ku haysaa miisaaniyada la keeni doono baarlamaanka oo aan filayno inay xukuumadda keeni doonto laba miisaaniyadeed oo miisaaniyad horumarineed iyo mid kale ah مسوامد شقدان حتى بنجي هرمانته وكانوا برلمانك شرعيان maxaan ku raadahay taabanayso wax badan baan laga yaabaa in sharciyadooda isoo rimaadaan aad baan kulli u rajeenayaa ka baarlamaan ahaan in arintaas ma xukuumadda soo gudbin xukuumadda in dalaan wax badan ku soo gudbisay oo hore u jirtay in erayga isaga meesha laga reebo oo bangiga sidoo ahaan jira ahaada aniga kulli waafaqay aad iyo aad maasta mabaadiida guud ee maaliyadda qodobku ka hadlay macnaha maxamuus waa runtiis in laga wada ay ka wada hadlaan dawladda federaalka iyo dawladaha xubinta kawaal mabaadiida guud oo maaliyadda bangigeenu wuxuu noqonayaa marka aad dib isku dartid mabaadiida guud ee maaliyadda noqonayaa oo qodob dastuuri kaas laftigiisu ay taa gudoomiyaha bangiga horumarinta iyo dib u dhiska dalka Professor Cabdullaahi Maxamed Afrax oo ayaa mudanaasha baarlamaanka uga jawaabay su'aalihii ay weydiiyeen iyo talooyinka ay soo jeediyeen isagoo sidoo kale faahfaahin ka bixiyay in injiil sharciyeedka dhismaha bangigan uusan ka hor iman shuruucda kale ee uu dalku leeyahay oo shirsan ayaa soo go'aamiyay annaga iyo wasaaradda waxaan geynay council of ministers ka geynay golaha darsay wax ka bedelay wax ku daray sharciga in hawyaal mid markii uu anu technical ayaa fasiraynaa laakiin waa mid ka soo baxay golaha wasaaradda oo ka soo baxay mid anagu aan keensanay maaha golaha wasaaradda waa hay-adda ku sarayso xagga fulinta oo mas-uulka ah maaliyadda dalka wax alla wixii ay dawladdu qaybeeda kala duwan lahaayeenna meesha ayuu ku rasan yihiin golaha wasaaradda ay ku rasan yihiin aqrinta labaad ee injiil sharciyeedka dhismaha bangiga horumarinta iyo dib u dhiska dalka ayaa mudanaasha baarlamaanku si aanba qaadi doonaan maalnimada berito iyadoo xildhibaano gaaraya 8 xildhibaanna ay harsan yihiin weli inay su'aalo weydiiyaan gudoomiyaha bangigan cabdifataax daahir jeyte telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta golaha shacabka Muqdisho.